Asalaamu calaykum, soo dhawaada saaxiibada kanaalka. Muuqaalka maanta waxaan rabnaa inaan kaga hadalno qaabka aad ku ogaan lahayd badqabka batteriga kombiyuutarkaaga iyo intuu yahay boqolkiiba caafimaadkiisa. Sidoo kale, si aad u ogaato badqabka batteriga kombiyuutarkaaga, uma baahnid wax internet ah si aad u ogaato. Marka ugu horeysa search box waxaad ku qoraysaa CMD, kadib waxaad dhahaysaa run as administrator. Waxaan qoraynaa power CFG space hyphen energy. Waxaan sugaynaa 60 second oo loading ku sameynayo. Hadda wuxuu soo saaray linkiga xogta batteridaada. Linkigan waxaan ku furi karnaa laba option: inaan copy dhahno kadibna kombiyuutarka title bartiga aan pass ku dhahno kadibna aan dhahno enter, ama in tab cusub aan furano kadibna aan dhahno pass. Sidoo kale, si aad u ogaato xogta batteridaada waxaad jiidaysaa scroll ilaa aad ka aragto battery information. hadda waxaad u jeedaa battery information. Sidoo kale waxaad samayn kartaa in control F aad aadid kadibna aad qortid battery information. Kadib waxaad u jeedaa mar kale xogta batterigaaga. Si aad u ogaato caafimaadka batterigaaga boqolkiiba intuu yahay, waxaad last full charge u qaybinaysaa design capacity-ga. soddon iyo shan kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideed. waxaan dhehnaa loo qaybiyey design capacity-ga waa 41,753. si aan percentage uga dhigno waxaan ku dhufanaynaa 100 kadib equal. hadda waxaad u jeedaa caafimaadka batterigaaga inuu yahay boqolkiiba 86. mar kale waxaan tijaabinaynaa step labaad oo aad ka ogaan kartid xogta batteridaada. waxaan qoraynaa mar kale CMD, kadib waxaan dhinaa run as administrator. waxaan qoraynaa power CFG slash battery report, kadib waxaan dhinaa enter. mar kale waxaad u jeedaa linkiga xogta batteridaada. waxaan dhinaa copy, kadib waxaan dhinaa pass enter. mar kale waxaad u jeedaa xogta batteridaada, reason usage-ka dhammaan waxyaabaha batteriga ku saabsan. si aad u ogaato boqolkiiba intuu yahay caafimaadka batterigaaga, full charge capacity-ga waxaa u qaybinaysaa design capacity-ga. soddon iyo shan kun sagaal boqol iyo sagaal. loo qaybay design capacity-ga waa 41,753. equal. waxaan ku dhufanaynaa 100 si aan ogaano percentage-ka saxda ah. sidoo kale, haddii aad rabtid inaad ogaato waxa laga soo gaabiyey MWH iyo CFG ama any abbreviation kale, waxaad Google search ku qoraysaa abbreviation CFG enter. hadda waxaad u jeedaa CFG in laga soo gaabiyey configuration MWH. asna waxaad u jeedaa in laga soo gaabiyey magnet watt. sidoo kale aad tijaabin abbreviation kale CPU central processing unit, HDMI high definition multimedia interface. kaliya waxaad qoraysaa ereyga abbreviation kadib waxaad ku daraysaa soo gaabinta adiga aragtid. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad ka heshay like saar oo la wadaag asxaabtaada. sidoo kale ha ka ilaawin inaad channelka subscribe dhahdo, fikradaadana la wadaagto.